asalaamu calaykum waan ku salaamay daawaday kusoo dhawow qaybta xigtaa ee sheekada ku saabsan shulaamid kohin ama luli iyo muusaad. qaybtii hore waxay noo joogtay markii sargaalka iyo sidoo kale gabadhii loo keenay ee fartuuniya ay sida gaarka u sheekaysanayeen in ay ku mashquulsaneen shulaamid kohin howlgalka yahuudda loogu buuxdhaafinayo doomaha islamarkaana loogu daabulayo dhulka falastiiniyiinta. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa shulaamid kohin markii ay hubsatay doomihii inay baxeen islamarkaana xeebta ay dhaafeen ayay usoo jeesatay dhanka iyo sidoo kale dadkii shaqada garabka ku siiyey ee kale ahaa yuusuf koobi, maxamed saciid cabdallah iyo sidoo kale wiilkii maafiyada ee doomaha diyaarinayay. waxaana ay ku tiri, howlgalkeennii si nabadgelyo ah ayuu ku dhammaaday. berrina waa inaan kulannaa oo aan ku kulannaa gurigii cusbaa ee dhowaan aan kareeyey si aan halkaas ay xarun aan uga dhiganno oo aan warbixinno isku dhaafsanno. yuusuf koobi oo dhanka maaliyadda u qaabilsanaa howlgalka ayaa wiilkii maafiyada ahaa qarashaadkiisii ku wareejiyey, waxaana uu dib ay ugu laabteen guryahoodii. balse waxaa goobta isugu soo haray maxamed saciid cabdallah iyo sidoo kale shulaamid kohin. maxamed saciid sidaan hore idinkula wadaagnay wuxuu ahaa ruux dareen xadhaafa u hayay shulaamid kohin islamarkaana gaadgaadayay. markii uu hubsaday in labadooda keliya ay xeebta ay ku soo hareen ayaa shulaamid kohin waxa uu ku yidhi, hagaag waxaan isku soo harnay labadeenna oo keliya, weliba xeeb cidlo ah oo aan ku sugannahay. haddaba haatan maxaan kugu sameeyaa? ka waran haddii aan hal xabad madaxa kaaga dhufto xabiibtii. shulaamid kohin oo qoslaysa misna ku faraxsan in howlgalkii guul uu ku dhammaaday ayaa tiri, aqoon ma u leedahay wakhtiga iyo sida aad bistooladaada aad u adeegsanaysid? markaas ayaa inta uu ku soo dhowaaday waxa uu ku yidhi, dabcan haa. shuula ayaa markaasi intii gacantiisii ay qabata waxa ay ku tiri, haddii aad taqaanid sida aad hubkaada u isticmaali kartid, haddaba waa inaad jilba jabsataa, tobaneeyo jeerna aad ugu tiraahdaa waan ku jeclahay shuula, waana ku jeclaan doonaa. markaas ayaa maxamed saciid cabdalla wuxuu bilaabay inuu si xiisa iyo hilow uu ka buuxo uu u fiiriyo shulaamid kohin oo dhankeeda sii eegaysay maraakiibtii oo xeebta kasii mirqanaya. saacaddu waxa ay sii dhaaftay saqdii dhexe ee habeenkii, iyadoo shulaamid kohin weli ay goobtii ay joogta ayaa waxay sii eegaysay maraakiibtii oo xeebta kasii libdhayso. markaas ayaa ay usoo jeesatay dhanka iyo maxamed saciid iyada oo daymadeeda ay ku maqan tahay, waxaana ay ku tiri, ugu dambeyn waan guulaysanay, waddadii badda ee yahuuddii mari lahaydna waan furnay. maxamed saciid cabdalla ayaa markaasi shuule ugu jawaabay, balse aniga howsheeda weli ma aysan dhammaan oo waa iga qabyo. markaas ayaa shulaamid kohin si dhaba waxay ugu soo jeesatay dhanka iyo maxamed saciid, waxaana ay ku tiri, maxaad doonaysaa oo adiga kaa maqan? maad ii sheegtid waxaad rabtid? inta uu gacanteedii qabtay una soo dhowaaday ayuu weydiiyey su-aal ahayd, miyaadan weli garan waxa aan kaa doonayo? shulaamid oo gacanteedii weli uu haysta maxamed saciid ayaa ku tiri iyada oo weliba u dhoolla cadaynaysa, hadda adiga waad ku adkaysanaysaa inaad geemkaad sii ciyaarta miya? markaas ayaa intii uu ku dhowaaday waxa uu ku yidhi way fiicnaan lahayd. intaasi kadib shulaamid kohin oo gebi ahaanba iska diidan xiriirka maxamed saciid cabdallah ayaa waxay u sheegtay in maxamed ay tahay taliyihiisa islamarkaana uu ku qasban yahay in awaamiirteeda uu adeeco. waxaa kaloo ay sheegtay inay ka baqaysay in haddii dhexdooda xiriir uu ka dhex bilowda in hadhow hadalkeeda uu maqli waayo, waana sababta keentay inay gebi ahaanba iska riixda maxamed saciid. maxamed saciid ayaa markaasi shuulla u sheegay in labadooda oo qura xeebta ay ku sugan yihiin islamarkaana ay tahay goob jacaylka ku wacan, isaga oo weli doonaya in uu shulaamid kohin uu soo jiito. shulaamid kohin ayaa markaasi maxamed waxay ugu jawaabtay su-aal ahayd waxa iyada uu ku arkay islamarkaana sidaas uu isugu dhajinayo. marka sheekadooda laga yimaado ujeedadu waxay ahayd in maxamed uu kusoo dhowaado shulaamid kohin oo waqti iyo xiriir uu la qaato. shulaamid kohinna waxa ay ka baqaysay in waqtigaasi uu keenay in hadhow maadaama ruux iyada ay u talisa uu yahay warkeeda uu qaadan waayo, taasi oo caqabad ku noqonaysa howlgalka. shulaamid iyo maxamed saciid halkii ayay camirteen habeenkaasi islamarkaana qamri ayay cabeen iyaga oo u dabaaldegaya guusha ay gaareen. balse shulaamid waxay isweydiisay xaalka uu ku sugan yahay sargaalkii dowladda lubnaan u shaqaynayay iyo gabadhii fartuuniya oo waqti wada qaadanayay. shulaamid oo aanan wax qabara ama warbixina uusan ka soo gaarin sargaalka, sidoo kalena wax aqbaara aan kala kulmin fartuuniya, ayaa isweydiisa haddii howshii fartuuniya guul ay kusoo dhammaatay iyo haddii kale. sidaasi daraaddeed arrinka ay u baahan tahay inay hubsato, waxaana ay go-aansatay inay guriga sargaalka ay wacdo. waxaana ay soo qabatay teleefoonkii linelineka ee guriga u yaala maadaama ay gurigoodii ay kusoo laabteen. teleefoonkii markii uu dhacay kadib waxaa qabtay qof neef tuuraya oo ahaa sargaalkii, waxaana ay shulaamid kohin durbadiiba iyada oo iscaraysiinaysa ee sargaalkii ay ku tiri, waqti yar ayaan kaa maqnaa, durbadiiba fartuuniya ayaad iga dooratay.
sarkaalkii ayaa misna ka jawaabay su-aashii oo waxa uu weydiiyey halka ay joogto. waxaa kaloo uu weydiiyey halka ay fartuuniya ay kaga jirtay magaalada. shulaamid markii ay hubsatay in dhanka sarkaalka sidii la rabay ay wax uga socdaan ayay seexatay oo waxay hubsatay in fartuuniya weli ay sarkaalka ay mashquulinayso. isla markii xigtayna horey waxa ay ka bilowday dejinta qorshihii howlgalka labaad, waxaana howlgalkaani kale uu yahay mid yahuudda la doonayo in lagu tahriibiyo, laakiin tiro ka badan kuwii hadda la tahriibiyey ayaa la doonayaa. markaana aan eegna guurkii shulaamid Cohen. shulaamid waqtigaasi adag waxa ay guursatay nin lagu magacaabo Yuusuf Kashka oo ahaa yahuud kale islamarkaana cunsuri ah, taajirna ahaa oo dhaqaale haystay, waxaana ujeedada u ahayd inaan laga shakin dhaqaalaha tirada badan ee iyada ay isticmaalaysa. sarkaalka isagu wuxuu la mid ahaa shulaamid marka loo eego nacaybka iyo karaahiyada uu qabay dalalka carabta iyo islaamkaba. yuusuf Kashka wuxuu ogaa wax walba oo ku saabsan xaaskiisa shulaamid Cohen, sidaasi aaweed marnaba arrimaheeda ma uusan faragashan, islamarkaana mana uusan hor istaagi jirin inay guriga ay ka baxda saacadda ay doonto maadaama uu khidmaynta dadkeeda ay ku jirtay, wuxuuna siiyo xorriyad kasta oo ay horey u haysatay. intaas kuma aysan ekaanin ee shulaamid Cohen ayaa mararka qaarkii howlaha shabakadda waxay ku qabsan jirtay guriga ay iyada iyo ninkeeda ay deganaayeen. inkastoo uusan Yuusuf Kashka arrintaasi ku faraxsanayn kuna qanacsanayn, haddana xaaskiisa dalabaadkeeda hadalkama uusan hor istaagi jirin maadaama uu ku galay arrimahan iyada oo ku jirta. shulaamid muddo yar ayay magac iyo aqoonsiba ay ka dhexaysay wakaaladda sirdoonka ee yahuudda dhexdeeda, iyada oo meel kasta ay sirdoonka ay kala soo xiriiri jireen, waxaana loo aqoonsan jiray Baalasta Suul, taasi oo ahayd kelmadda sirta ah ee la isku raacsan yahay islamarkaana u dhexayn jirtay shabakadeeda iyo hay-adda Muusaad. sirdoonka kelmaddaasi sirta adeegsanaya xitaa waxaa lagu furi jiray nooc kasta oo albaabada wakaaladda ah, waxaana shulaamid Cohen ay kalsooni ballaaran ay ka heshay taliyaha ciidamada sirdoonka, kaasi oo go'aansado inuu u xilsaaro howlaha halista ah maadaama ay si weyn loogu kalsoonaa. dhanka kalena shulaamid Cohen waxay bilowday inay shabakadeeda ay sii ballaariso, iyadoo shabakada kusoo biirin jirta tiro aad u badan oo dumarka quruxda badan ee yahuudda ah iyo sidoo kale nimanka hantidoonka ah, misna doonaya inay waqti yar hanti badan ay ku yeeshaan. howlgalkaani lagu tahriibinaya yahuudda ee uu maalgelinayay Yunis Kobi waxaa dhankeeda ay ahayd si joogta mid u socota, iyada oo sidaan aan soo sheegnaba wiilka maafiyada ahaa oo isaga u ahaa markasta midka doomaha iyo maraakiibta loo baahan yahay diyaarin jiray. muddadaasi ay shabakadda isballaarisay waxaa shabakadda kusoo biiray nin taajir yahuudi ahaa islamarkaana milyaneer ah, kaas oo da-diisa kontomaadka ay sii cagacagaynayso. waxaa lagu magacaabi jiray Albert Cabdulaahi Eyliya, waxaana dhambaal ka yimid Tel Aviv lagu amray in shulaamid Cohen ay la shaqayso islamarkaana ay isgaraabsadaan yahuudkaasi taajirka ah, kaasoo hantidiisa sida ay doontay u maamulan karto. habeenada ka mid ah waxaa ballansanaa Albert Cabdulaahi iyo shulaamid Cohen si ay uga wada hadlaan mid ka mid ah howlgalkoodii shabakadda ay u xilsaartay, balse Albert ayaa shulaamid kaga yaabsaday su-aal ahayd imse gabdhood ayaa shabakadda ka shaqaynaya. shulaamid waxay ugu jawaabtay inay la shaqeeyaan Saarina iyo Fartuuniya, balse mustaqbalka dhow ay rajeynayso in shabakadda ay kusoo biiriso gabdho intaasi ka badan. markaas ayaa Albert shulaamid Cohen waxa uu sheegay inay qasab tahay inay ogaadaan in gabdhaha quruxda badan ay yihiin kuwo muhiim u ah shabakadda jaajuusiinta, waayo ninka si kasta uu awood badan u leeyahay una karti badan yahay markuu arko gabar qurux badan islamarkaana hilaacaysa awood kasta oo uu leeyahay waa ay daciiftaa. taasina waxay ahayd aragti oo Albert uu kala yimid magaalada Tel Aviv. taajirkii Albert ahaa ayaa markaasi waxa uu sheegay in laga bilaabo maanta qarash kasta oo ay u baahan tahay shulaamid Cohen in howlgalkeeda ay kusii wado isaga laga qaadi doono. shulaamidna waxay sheegtay in hubanti ay tahay in howshooda sidii la rabay uga soo bixi doonaan, wakaaladan ay ka caawin doonaan sir kasta iyo macluumaad kasta oo ay u baahan yihiin dagaal maadaama ay kula jiraan wadamada Carabta. Albert ayaa markaasi waxa uu sheegay in waxba aysan ka walwalin shulaamid Cohen intii hantida isaga uu haysto, taasi oo loogu talagalay islamarkaana uu uga faa'iidoon doono wax walba oo la doonayo in lagu hagaajiyo, taasi oo ah in yahuud tiro badan laga daabulo dhulka Lubnaan iyo deegaanada kale ee Carabta ay ka imaanayaan laguna beero dhulka ay aaminsan yihiin in iyaga ay leeyihiin oo ah Falastiin. shulaamid Cohen ayaana waxay sheegtay in laga bilaabo maanta inay bilaabi doonto sidii ay ku ballaarin lahayd shabakadda islamarkaana gabdho kale oo qurux badan ay ugu soo biirin lahayd. markaas ayuu Albert kula sii dardaarmay in gabdhaha quruxda kaliya aanan lagu qiimeynin, balse ay ahaadaan kuwa caqli badan islamarkaana aqoon u leh ragga iyo sida loo waalo. markaana aan eegno qorshaha cusub ee yahuudda lagu tahriibinayo. howlgalkii tahriibinta yahuudda sidii ayuu usii socday, iyada oo howsha oo dhan ay u dhici jirtay sidii qorshaha uu ahaa.
xilli shulaamid Cohen ee Yahuudda ay kala tagsan isu keeni jirtay islamarkaana ay ka dhaadhicin jirtay inuu jiro dal ay leeyihiin loona baahan yahay inay dib ay ugu soo cishtaan kaasi oo dhulka Falastiiniyiinta ujeedaduna ay tahay inay u tahriibaan marka hore. howlgalkana dhanka dhaqaalaha waxaa gacanta ku hayay Yusuf Kobi wiilka maafiyada ahaa ee Lubnaaneeska iyo Maxamed Saciid oo markaani noqday gacanyaraha qaaska ee Shulaamid Cohen waxaana saddexdaasi nin ay noqdeen tiirka shabakadda iyadoo Shulaamid maskaxda ay wado sidaasina ay ku fulin jirtay dhowr howlgal oo muhiim ah. dhowr howlgal markii si wada jir ay u fuliyeen kooxdaasi ayaa waxaa dhacday in yarkii Lubnaaneeska maafiyada ahaa misna kooxda u qaabilsanaa arrimaha doomaha iyo waxyaabaha la midka ah damaciisii oo kor u kacay misna uu bilaabay inuu dalbado lacaga dheeraad ah arrintaas oo khilaaf xoogan ka dhex abuurtay isaga iyo Yusuf Kobi oo shabakada dhanka maaliyadda u qaabilsanaa. arrinta ayaa sii xumaatay kana sii dartay markii khilaafkii uu isku bedelay dagaal toos ah iyadoo sidaan hore idinkugu sheegnay wiilka Lubnaaneeska ah uu ahaa mid maafiya awood ballaaran ku lahaa magaalada sidaas daraaddeed waxaa tacaddi u geystay Yusuf Kobi arrintaasi oo sababay in gebi ahaan bay istaagaan tahriibintii Yahuudda ee dhanka badda. Shulaamid Cohen waxaa qasab ku ahayd inay xal ay u hesho caqabada taagan sidaasi aageed waxay la fariisatay Maxamed Saciid Cabdallah si ay uga wada hadlaan arrinta taagan xalna loo keeno. tahriibinta Yahuudda maadaama ay istaagtay tahriibintii dhanka badda oo hore u ahayd dariiqa ugu fudud ee dadyo badan oo Yahuud lagu tahriibin jiray ayaa Shulaamid Cohen waxay Maxamed Saciid ay ku tiri waxay ila tahay Yusuf Kobi uu qaldan yahay sidoo kalena habdhaqanka habsame u socodka qorshaha isaga ayaa bedelay maadaama ay ahayd inuu dalabaadka wiilka Lubnaaneeska u aqbalo misna daraahiinta uu rabo uu siiyo halkii howlgalka halis la gelin lahaa misna uu istaagi lahaa isagana waa in uu maanka uu ka hayo inaan hore guulo waaweyn aan madaxiisa ku gaarnay. Maxamed Saciid Cabdallah ayaa markaasi u jawaabay laakiin waa qof hunguri weyn islamarkaana qiimo waali ah sheegtay ayuu yiri isagoo sheegay intaasi aysan macquul ahayn in shabakada ay dhiibto waxaanay ka soo horjeedeen dhaqaalahaasi tirada badan. Shulaamid oo u aragtay in arrintan ninkaasi xal loo helo ay tahay arrin muhiim u ah maadaama cadaadis uu ka saaran yahay dhanka dibadda islamarkaana caqligeeda ka shaqaysiinaysa ayaa waxay weydiisay su'aal haddaba maxaa xal ah maadaama wakaalada si joogto ah nooga dalbanayso inaan Yahuud badan aan soo daabulno. markaas ayaa waxa uu soo jeediyay Maxamed Saciid Cabdallah in isaga lagu wareejiyo hawsha Yahuudda loogu gudbinayo dhulka Falastiiniyiinta isaga oo siyaabooyin kala duwan adeegsanaya maadaama aqoon dheeraad ah uu leeyahay wadooyinka isku xidha xuduudda labada dal. markaas ayaa Shulaamid waxay tiri arrintaasi waa mid halis islamarkaana dhib badan waxaana ka baqayaa in gacanta la idinku dhigay idinkoo xuduudda sii jaraya. Maxamed Saciid Cabdallah oo go'aankiisa ku adkeysanaya isaga oo Shulaamid u sheegay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lagu kalsoonaado islamarkaana hawsha isaga ay u dayso natiijadana laga warsugo. Shulaamid markaasi waxay u sheegtay Maxamed Saciid in hawsha la doonayo inay tahay in biribe la bilaabo halka Maxamed Saciidna uu aqbalay isagoo sheegay in iyada ay diyaarisay Yahuudda la tahriibinaya halka isaga la rabo diyaarinta qaabkii xuduudda loo dhaafsiin lahaa. Shulaamid iyo Maxamed markii qorshaha tahriibinta Yahuudda ay ka soo jeesteen islamarkaana ay ku ballameen in biri la guda galo ayuu Maxamed Saciid u soo jeestay dhanka Shulaamid waxaana uu bilaabay inuu ka wareystay guurkeeda iyo waxyaabaha la midka waxaana Shulaamid ay ugu jawaabtay Yusuf waa nin wanaagsan ina qiimeeya mana faragashto arrimahayga gaarka ah. Maxamed Saciid markaas ayaa Shulaamid waxa uu ka codsaday maadaama biri safar uu yahay in caawa waqti ay wada qaataan balse Shulaamid arrintaas iyada oo ku qanacsaneen ayaa tiri haatan xilli mashquul ayaa lagu jira adiga dabaal miyaa tahay arrintaas waqti uma hayo maad naga dhaaftid haddii aad arrintaas ku adkeysanayso balse qiimeyn ayaan sameynayaa. markaas ayaa waxa uu ku yiri Maxamed mashaakilkan dhan iska iloow adiga oo aniga waqti igala qaado maxaad iga cararaysaa. Shulaamid ma aysan dooneynin in ay laba garab oo waaweyn hal mar ay isku weyso maadaama ay weysay garabkii wiilkii Lubnaaneeska ahaa ee howlgalkii dhanka badda hakad ka gelaya mana aysan dooneynin in hadda ay weyso Maxamed Saciid oo si weyn isagana ay ugu tiirsaneyd howlgalkii dhinaca bariga waana sababta ay u filaysan jirtay dalabaadkiisa oo dhan xitaa haddii nafteeda ay u hibayso. muddo sanad ayuu Maxamed Saciid ku noqday geesiga howlgalka tahriibinta ee dhanka bariga isaga oo Yahuudda si joogto ah u daadgureyn jiray geeyirayna dhulka Falastiiniyiinta sidoo kale wuxuu noqday sargaalka isku xiran shabakada iyo wakaalada Yahuudda ee Tel Aviv isagoo macluumaadka isaga gudbin jiray magaalada Beirut iyo Tel Aviv ilaa ugu dambeyntii uu ku guuleysto helida kalsoonida ragga ugu sarreeya sirdoonka Yahuudda isagoo intaas ay u sii dheereed in lacagihiisa si toos ah u qaadan jiray xitaa saraakiisha wakaalada aysan gacan kale u soo marsiin jirin.
maalin maalmaha ka mid a xilli lagu guda jiray sanadkii 1954 ayaa waxaa dhacday in muqaabaraadka Lubnaan ama hay-adaha sirdoonka ee Lubnaan ay ka shakiyaan howlaha uu qabta Maxamed Saciid, sidaasi awgeed ayayna dabagal ay ku sameeyeen iyagoo ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigay xilli uu rabay inuu kasii gudbo xuduudda Lubnaan ee dhulka Falastiiniyiinta ay la wadaagto, kadibna xabsiga ayaa loo dhaadhiciyey. Shulaamid Cohen durba waxaa soo gaaray akhbaartii la xiriirtay in Maxamed Saciid ay gacanta ay ku dhigeen hay-adaha sirdoonka ee Lubnaan. Arrintaasi si weyn ayay uga nixisay, waayo haddii Maxamed Saciid uu bixiyo muqaabaraadka Yahuudda macluumaad la xiriira oo uu siiyey hay-adda sirdoonka ee Lubnaan, waxay la mid tahay in Shulaamid Cohen xabsiga ay geli doonto, islamarkaana shabakadda iyo howlaheeda oo dhammaan ay joogsan doonaan. halkaa hay noo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan Shulaamid Cohen, Lu'li iyo Muusaad. waxaan u mahad celinayaa saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno oo warbixintaani tarjumay, buuggaanina waxaa qoray Xaatim Khouri. qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.